hay-adda Jarmal Agro Action ayaa maanta deeq raashin oo ka kooban 600 oo qoys u qaybiyay dadka barakacayaasha iyo dadka deegaanka ee danyarta ah ee ku kala nool shirwac lagu baanay iyo geediqsi oo ka tirsan degmada Dila. qaybinta deeqdaasi oo ay ka qayb galeen guddiga abaaraha ee gobolka Awdal iyo maamulka hay-adda Jarmal Agro Action maayirka degmada Dila iyo xogayaha gobolka Awdal ayaa waxa loogu mahad celiyay hay-adda Jarmal Agro Action deeqdaasi tirada badan ee ay gaarsiisay maanta dadka ku nool deegaanadaasi kala duwan. waxaana ka kala hadlay deegaanadaasi kala duwan guddiga taakulaynta abaaraha ee gobolka Awdal waxaana hadaladoodii ka mid ahaa. waxaanu joognaa goobtan oo geediqsi tuulada geediqsi waxaan halkan ku qaybinayn hay-adda Jarmalka ama GA dadku soo loo yaqaanaanba raashin dhan 400 oo qoys raashinkood waa raashin waafiya. raashinkaas wuxuu ka kooban yahay kiish bariisa nus daqiiqa rufuc sonkora daasad caana ah iyo kartoon timira waa raashin aad u tiro badan iyo caagad saliida. waxaan ku bixinay raashin uu leeyahay hay'adda Jarmalku ay noo keentay magaceeda iyaga sheegi doona oo 200 oo qoysa. taasi waxa weeye roobkii kolkuu da'ay dadkii haddana hayaankii ayaa maanta iyo shalay ayaa haddana isku yimid oo way wada joogaan. sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Dila hayb tuulaha deegaanka shirwac lagu baanay iyo ku-xigeenkiisa waxaanay ka mahad celiyeen deeqdaasi la soo gaarsiiyay dadka deegaankaasi ku nool ee danyarta ah iyo dadka soo guurtada ka soo barakacay bariga Soomaaliland. madaxda hay'adda GA oo runtii horena u qaybisay maantana qaybinaysa kulli raashin karo dadka hore loo sheegay waxa keentay hay'adda GA-da. sidoo kale xogayaha gobolka Awdal ayaa isaguna waxa uu tilmaamay runtii hay'adda Jarmalka ka maamulka gobolka ahaan mahad weyn iyo sharaf weyn u haynaa hay'adaha kale ee degan gobolka iyo dhammaan Soomaaliland waxa leenahay lagu daydo hay'adda Jarmalka. laba sargaal oo ka socday hay'adda Jarmal Agro Action ee ka howlgasha gobolkan Awdal ayaa iyaguna waxay ka warameen ujeedada deeqdan ay u bixinayaan. GA dadku yaqaanaan shin waafiya marka dadka loo qaybinayna waxa weeye 400 oo qoys isla maanta meelo kale oo raashin laga qaybinayo gobolka jira oo shirwac baa imikadan ay ka socotaa qaybintu. Jarmal Agro Action toddobaadkan baa waxaanu ku jirnaa hawlaha gurmadka abaaraha oo ay qayb ka yihiin taakulaynta guddiga abaaraha ee heer gobol iyo kulli waxa weeyaan maanta waxaan joognaa shirwac lagu baanay waxaan ka wadnaa magaranaysaa raashin qaybintaasi oo ay iskugu jiraan magaranaysaa dadkii deegaanka oo wixii magaranaysaa aad u taag darana iyo kuwii magaranaysaa guddiga iyo dadkii xagga bariga ka soo baxay ay kuwii jira jooga Allah inaga dhigo kuwii curyaaminta iyo cid walba wadeega Allah inaga dhigo dawladda iyo dadweynaha hirgalay Allah inaga dhigo aniga oo curyaan oo cagal ahayn oo cuud lahayn oo caydha iyaanu oo ciriya roobtoona ka ordin baanu mahad celinayaa Allah gaarsiya Allah. hore hay'adani ay deeqa kala duwan uga soo bixisay deegaanada degmada Dila idanka iyo tulida tanna ma ahintii ugu dambeysay balse deeqaha loogu talagalay dadka abaaru waxyeeleeyeen ayay sii wadi doonaan. waa Caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama.